labada nin ee sixirka ugu badan hadda dhalinyarada ku baabi'iyey nin ka mida waa la sixray. caawa waxaan rabaa inaan wax runta ka sheego. rag saaxiibaday way iga xanaaqayaan, laakiin I don't care. sababtoo ah inaan qof qariyo waxaa iiga muhiimsan inaan 100 qof badbaadiyo oo dhalinyaro ah oo shaqaysanayso. dadka wax sixra ee dhalinyarada sixray ee dhalinyarada ku baabi'iyey Nairobi, Big Bro ninka la yidhaahdaa ugu weyn. Big Bro ninka la yidhaahdo ugu weyn. dadka aan mataqaanaa hubo ee ninka odayaha waa geesi sixirka u laaqay ee dhibaateeyey Adnaan Mooda nin la yidhaahdaa ugu weyn. Adnaan Mooda nin la yidhaahdo oy weli isku qabiil yihiin baa ugu weyn. oo indhihii geb ay dhaheen oo waxba arag waay hadde oo aan haddaa u tagto ku jeedin oo waxaa hormaraya aan arki karin. anigo imika gabadha u tuman sheegi may magaceede markay saa uga dhaqaaqday zam labada indhood zam. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. way soo wacday ayeeyo daahir hee ayeeyo waa indhabeele bismillaahi raxmaan qaalihi maxaa kugu dhacay ayeeyo haddaan ka nimid Itoobiya gabar saaxiibtay ay soo booqato markay ii timid iga tagtana waa indhabeele dam. inaa lilaahi wa inaa raajicuun. sixirka qaali sida loogu waday oo loogu waday oo loogu waday oo loogu waday oo loogu waday waxaa laga keenay in la yiri waa ka baxay fanki waa nacay ilaa ubadkii ilaa fanki waa nacay fan ma rabo waa ka baxay laga keena. waxaa tagtay Saacid Siman baa tegey. Saacid Siman baa tagtay meeshii qabsatay magaalada dhammaadba. halkan ayaa maray Saacid Siman, halkan ayaa ka helay Saacid Siman, xagga ayaa ka leexday Saacid Siman. Saacid Siman waxaa laga keenay fanki waa ka baxay. waxaa laga keenay Saacid Siman aniga allaha ka allah fan waa isaga baxay. waa isaga baxayey alla keenay waaya. waxaa soo haray qaalada nin baa guursaday Raaga Cabdi. wuxuu lahaa youtube-ka ugu shidan ee heesahu lahaa. youtube-ka ugu shidan ee ugu qatarsan ee Nairobi waa wiil talentile Raaga Cabdi oo wuxuu sameeyaa barnaamijyo si qurux badan. editing-ka mucjiso ku yahay. computer science ko bartay. ninkii dib dambe yaa u maqlay waa la qataaray. dadka meesha lagu qataaray haddaan idinka sheekeeyo caawa Nairobi waa yaabaysaan. gabadha quruxda badneed ee Xabsa Kuwiin dukaamo bay ku lahayd Nairobi. dhowr dukaan baa u furneed. cosmetics bay gadaysay. magaalada waa u shidneed. gabadhii dukaankeeda subax kastay jirtay. lacagta adduunkay shaqaysanaysay. hal mar baa gabadhii sanka iyo afka iyo meel walba dhiig ka yimaadeen. waxaa kaloo gabadha lagu sameeyey ma awoodo intay dukaankeeda tagto inay dukaankeeda ka shaqaysato. Xabsa Kuwiin ma awoodo. laa xawla walaa quwata illaa billah al-cadiim. gabadhi dukaankaba lama maqashii kara. dukaamadaadii lama maqashii kara. gabadha guriga ka soo baxee banaanka markay marayso way laabanay gurigeeda ku laabanay. ilaah baa idinku dhaariyey sixirka maanta meesha uu marayo bal arka. Nairobi waxaa tagtay England show baa tagtoo Kampala ka soo wareegtay. TV caalamiya u shaqaynaysay. halkan yaa maray England show yaa kala kiciyey England show. gabadha siday xidig star u ahayd hal mar la qoful markaas ay ku waalatay dhoof waan baxayaayey. salaada markay dukanaysa qiblada ma dhinac kale u jeesato waa la soo riday. gabadhii magaalada u shidneed ee gaariga quruxda badan ku dhex wadatay London bay ka tuureen qaxooti bay ka dhigeen. ilayare ninka ugu adag ee sixirka uu kari waayey ee 2 jeer ka badbaaday marka saddexaadna uu soo ritay ilayare waxa. ilayare sixirka waxaa loo daba gala maxaa kaa gala dhaca xaga dhig baaska dhig hoos ka sii kor ka sii hoos ka sii
automatic hadduu naa guursado ha furo ee odaga habeenkii buraha uga soo baxdo dhuunta mid kale dhabarka mid kale futada odaga ilaha iska oynayo waa ku soo wacaya haddaan dhinta ilmaha iyo ogow maxaa kugu dhacay abowaale ijaanjaame abowaale dhibaateeye hoos ka sii kor ka sii dhacdhacdhacdhacdhacdhacdhacdhac waaya ilayada marka ugu dambaysa adigu hadda xoogaa waa iska cayntay gabadh abgaal reer maraykankana waa loo guuriyey xaaladiisna xoogaa soo fiicnaanaysaa ile marka waxa sixirka oo burji adaga uu leeyahay laakiin sixirka wuxuu qaban jiray isaga taariikh salaad oo ahay salaada ma dukan jirin hadda salaadii bilaabay qaaladan laakiin weligeed ahlu salaad bay ahayd dhigla showna weligeed ahlu salaad bay ahayd meelahay ku cayntaan wey gabadha hadda halkaa ii saara sagal artis gabadha ugu shidan ee ugu codka macaan Nairobi bay ahayd waa la jaajaamay guriga wax ka soo bixi wax lagu xiray program waxaa lagu xiray la yiraahdo guriga ha ka soo bixin dadkeedu waxaan joogaa 2 alifka kuma ma karto ustaadkayga abwaankayga xagee joogta ay kula taleefanka soo hadlay waxaan joogaa 2 alifka Imperial Hotel baan joogaa haye waaye ustaadkayga laakiin ma dhaqaaqi kartaa hal tilaabo ma qaadi kartaa hal tilaabo ha waaye marka waxa weeye dad badan oo wada caana oo la sixray